ومحسنتها محمد دجالك ayaa mid xoogan oo ka bilowday duleedka galbeed ee magaalada Jowhar ee caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawlad goboleedka Hirshabelle iyo koox la magac baxday macawisleyda dagaalkan ayaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadkii ku dhintay oo hadda aan xusi karno waxa kamid ah Ali Ahmed Goodaad Ali Madoobe oo kamid ahaa mas'uuliyiinta madaxtooyada Hirshabelle sidoo kale isna waxa iskoormaadkaasi ku dhaawacmay Ciise Nuur oo kamid ahaa shaqaalaha bartakoolka madaxtooyada dawlad goboleedka Hirshabelle ma la og yahay sababta dagaalka keentay dagaalkan ayaa daba socday xarig loo geystay taliyihii maleeshiyaadka macawisleyda ee galbeedka Jowhar ka howlgasha kaas oo lagu magacaabo Yuusuf Macalin ama loo yaqaano Bufaro ama iyo afar kamid ah askartiisa kuwaasi oo xabsiga Jowhar la dhigay maalmo ka hor waxaana ciidankan maleeshiyaadka macawisleyda ay doonayeen in xoog ay ku soo furtaan ragaasi ka tirsan kooxdaasi oo maamulka Hirshabelle uu ka xiray xubnahan dhimashadii dhaawacay ka soo gaartay madaxtooyada Hirshabelle ka tirsan aaga dagaalka maxaa geeyay waxa la sheegay in howlgalka ay ciidamada oo dhan ay ku sugnaa magaalada Jowhar ay ku dhaqaaqeen rasaasta waxay ahayd mid aad u xoogan oo dagaal aad u xoogan oo afarta xaafadood ee magaalada Jowhar si xoog looga maqlay ayuu ahaa waxaana la sheegay mid kamid ah gaadiidka uu leeyahay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle ay rasaas xoogan ay haleeshay taasina ay sababtay in ragaasi ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdaan marka intaad ii sheegtay wax ka baxsan oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaalka ma jira ilaa hadda lama oga qasaaraha saxda ah ee ka dhashay dagaalkaas waxa jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ee dagaalamayay iyo waliba dadka rayidka walow aan la ogeyn in dagaalka sida saxda iyo dhaawacyada ama dhimashada halkaasi dadka jooga kala gaaray iyadoo wili goos ay yihiin rasaasto mararka qaar la maqlayo iyo daryanka hub culus oo halkaasi la isku ilaarsanayo inkastoo rasaasto ay ka sii saqday gudaha magaalada Jowhar ugu dambeyn maxaa lagu qiimeyn karaa hadda dadkaan ogeyn xaaladda magaalada Jowhar xaaladdu hadda waxay tahay mid degan inkastoo mararka qaar la maqlayo rasaas xoogan oo la isku adeegsanayo gaar ahaan qoriga RPG-ga loo yaqaano ama 7ka Soomaalida ay u taqaano mararka la maqlayo iyo jug xoogan balse hadda waxa ku sifay karnaa in xaaladda magaalada Jowhar ay tahay mid aad u degan